Sida caadiga ah, adduunyadan aan ku noolahay waxaa ku yaala buuro iyo taagag leh muuqaallo cajiib ah, taasi oo ay ku kasbadeen dheeraanta dhererkooda. Sidoo kale waa goobo ay adag tahay in warbixin dhammaystiran laga keeno fiiqyadooda ugu sarreysa, sababtoo ah waa meel khatar ku ah nolosha fuulayaasha, una baahan inay fuulaan dad khibrad u leh. Haddaba daawade, waxaan tobanleydeenna maanta kugula wadaagi doonaa 10 buurood ee adduunka ugu dhaadheer ee soo dhowow. Magacaygu waa Yuusuf Ibraahim, halkanina waa Irmaan Show. waxyaabaha cajiibka ah aan ku arki doono tobanleydeenna maanta waxaa ka mid a daawade in 10 buurood ee adduunka ugu dhaadheer dhammaantood ay ku yaalaan qaaradda Aasiya, sidoo kalena ay si gooniya badankooda u sii dhacaan xadka buuraleyda Himalayas. Kaalinta koowaad, buurta ugu dheer adduunka waxaa loo diiwaangeliyey buurta Everest. Buurta Everest waxay dhacdaa waddanka Nepal, gaar ahaan xadka uu waddanka Nepal la wadaago Shiinaha. Buurta Everest cabirka dhererkeedu waxa uu gaadhaa 29,029 fiit oo u dhiganta 8,848 mitir. Kaalinta labaad, buurta labaad ee ugu dheer adduunka waxaa loo diiwaangeliyey buurta K2. K2 waxay dhacdaa gobolka Kashmir, qaybta Shiinuhu maamulo iyo qaybta Pakistan maamusho, taasi oo ka dhigan inay u qaybsan tahay labada waddan ee Shiinaha iyo Pakistan. Buurta K2 cabirkeedu waxa uu gaadhaa 28,251 fiit oo u dhiganta 8,611 mitir. Kaalinta saddexaad, buurta saddexaad ee adduunka ugu dheer waxaa loo diiwaangeliyey buurta Kinchenjunga. Buurta Kinchenjunga waxay dhacdaa xadka wadamada Nepal iyo Hindiya. Cabirka dhererkeedu waxa uu gaadhaa 28,169 fiit oo u dhiganta 8,586 mitir. Kaalinta afraad, buurta afraad ee adduunka ugu dheer waxaa loo diiwaangeliyey buurta Lhotse. Buurta Lhotse waxay dhacdaa xadka wadamada Nepal iyo Shiinaha. Cabirka dhererkeedu waxa uu gaadhaa 27,940 fiit oo u dhiganta 8,516 mitir. Kaalinta shanaad, buurta shanaad ee adduunka ugu dheer waxaa loo diiwaangeliyey buurta Makalu. Buurta Makalu waxay dhacdaa xadka wadamada Nepal iyo Shiinaha, waxayna 12 mayl dhanka koonfur bari kaga beegan tahay buurta adduunka ugu dheer ee Everest. Buurta Makalu cabirka dhererkeedu waxa uu gaadhaa 27,825 fiit oo u dhiganta 8,481 mitir. Kaalinta lixaad, buurta lixaad ee adduunka ugu dheer waxaa loo diiwaangeliyey buurta Cho-Oyu. Buurta Cho-Oyu waxay dhacdaa xadka wadamada Nepal iyo Shiinaha, gaar ahaan dhinaca Nepal, waxayna 20 kiiloomitir dhinaca galbeed kaga beegan tahay buurta adduunka ugu dheer ee Everest. Buurta Cho-Oyu dhererka cabirkeedu waxa uu gaadhaa 26,906 fiit oo u dhiganta 8,201 mitir. Kaalinta toddobaad, buurta toddobaad ee adduunka ugu dheer waxaa loo diiwaangeliyey buurta Dhowlagiri. Buurta Dhowlagiri waxay dhacdaa bartamaha waqooyiga waddanka Nepal. Cabirka dhererkeeduna waxa uu gaadhaa 26,795 fiit oo u dhiganta 8,167 mitir. Kaalinta sideedaad, buurta sideedaad ee adduunka ugu dheer waxaa loo diiwaangeliyey buurta Manasala. Buurta Manasala waxay dhacdaa bartamaha qaybta galbeed ee waddanka Nepal. Cabirka dhererkeeduna wuxuu gaadhaa 26,763 fiit oo u dhiganta 8,163 mitir. Kaalinta sagaalaad, buurta sagaalaad ee ugu dheer adduunka waxaa loo diiwaangeliyey buurta Nagno Parbat. Buurta Nagno Parbat waxa ay dhacdaa waddanka Pakistan, gaar ahaan dhanka koonfureed ee webiga Indus. Buurta Nagno Parbat dhererka cabirkeedu waxa uu gaadhaa 26,660 fiit oo u dhiganta 8,126 mitir. Kaalinta tobnaad, buurta tobnaad ee adduunka ugu dheer waxaa loo diiwaangeliyey buurta Annapurna. Buurta Annapurna waxay dhacdaa waddanka Nepal. Dhererka cabirkeeduna waxa uu gaadhaa 26,545 fiit oo u dhiganta 8,091 mitir. Muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay. Haddaba daawade, haddii aad halkan nala soo gaadhay mahadsanid. Haddii aanad weli ka mid noqon saaxiibadeena oo aanad subscribe saarin channelkeena, waxaan rajaynayaa inaad imika saari doontid.